الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعد waxaa leedahay Jeelani Maxamed Xuseen hay'adda waxaan ahay gudoomiyaha hay'adda Care Minnesota maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan runtii aan aragno Mareykanka waliba gaar ahaan Minnesota amba si gaar u ah reer Siidar in ay maqlaan aadaankii salaada maghribka oo maanta waliba si gaar u ah salaadii maghribka waxay maanta noo cadeynaysaa in bilowgii bishii barakeysan Ramadaan inaga oo runtii hadda ku jirna xilli adag oo cudurkan corona lagu jiro inagoo masaajidadii ay naga xiran yihiin aan haddana runtii aan helnay fursad aad iyo aad u qaali ah in eedaankii uu masaajidkii uu nagu xidhay dadkii si salaadiina loo tukado si loola socdo masaajidaduna inay iyagoo xiran haddana ay dadkii maaragtay ku raaxeynayaan eedaanka insha Allah hadda waxaan dhageysanay eedaankii ugu horeeyay oo magaalada Minneapolis cariga Mareykanka laga oogo iyadoo waliba ay tahay Ramadaan kowdeedii waa laba farxadood oo waaweyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadle dadka muslimiinta meel kasta ay joogaanba inkastuu dib badan jiro cudurkan coronavirus uu keenay haddana Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa qadaray Allah subxaanahu wa ta'aala ayaynu u cibaadaysanayna xilli kasta ama masaajidii iyo salaadii jamaacadii hadday naga xidhmeen Ilaahay wuxuu inoo furay aadaankii inay dhagaheennu maqlaan inagoo guryaheennii joogna taana waxaan rajaynaynaa dadka Soomaalida badan xaafaddan degan oo waayeel u badan oo carruur iyo qoysas u badan inuu qalbigooda ugu dago maqalka aadaanka oo islaamkoodii xalbullah almatiin ay qayb ka mida ay maanta ay maqleen oo ay qabsadeen taasoo u fududaynaysa inay cudurkan dhibka geystay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu iimaankooda u xoojiyo inuu Ilaahay u sahlo inagana inoo sahlo soonka iyo sadaqada iyo quraan akhriska wabillahi tawfiiq adamii hore waxa masaajidka gudaha lagu adimi jiray marka gudaha masaajidka waa gudaha lagu adimi jiray marka hadda kulay Ilaahay waxaan ku baahdaynaa marka masaajidkii oo codka kor loo bixiyay oo meel walba la maqlay taas Ilaahay ku baahdaynaa alxamdulillah marka ugu horeysa waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim annaga waxa inta noo dheer oo farxad noo ah markii ugu horeysay ee magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota laga adin laga maqlay banaanka oo ay dadku marxaati u yihiin xaafadda Soomaalida u badan tahay ee sida Riverside oo ku taala koonfurta Minneapolis waxaan u mahadcelinayaa maamulka magaalada Minneapolis duqa magaalada waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale ururka Islaamka Care waxaan u mahadcelinayaa maamulka masaajidka Sheekh Cabdisalaan iyo Imaan Cabdiraxmaan iyo dhammaan dadka soo shaqeeyay runtii waa maalin farxad leh adinku waa garan karnaa runtii ahmiyadda uu noo leeyahay haddana dadka islaamka ah xaafadda dadku ay degan yihiin Soomaalida runtii oo masaajidku ku yaalo waxay u tahay ahmiyad weyn iyo farxad weyn inay maqlaan 30 bari ee Ramadaan adinka ah shanta waqti ee salaadood ee la tukanayo shanta salaadood waqtiga la tukanayo marka runtii waxay tahay farxad weyn anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed iyo magaca community-ga magacaygu waa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC oo kamid ah madaxda community-ga Soomaalida ee gobolka Minnesota waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale Somali American Media iyo dhammaan dadka soo qayb galay Soomaalida ha waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh